بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. waxaan doonayaa in saaka idin siiyo warbixin kooban oo ku saabsan socdaal aan ku soo maray dalka Ingiriiska iyo dalka Itoobiya. waxaan halkan ka tegay 10kii bisha ayaan ka tegay marka Ingiriiska waxaan gaaray 11kii waxaan joogay ilaa iyo 15kii bisha 16kii 17kii 18kii waxaan aan u kicitamay dalka Itoobiya magaalada Addis Ababa halkaas aan kula kulmay madaxweynaha safarkiisii markii halkaa uu joogay ka bacdina dubaan Ingiriiska ugu noqday ilaa 24kii bisha dabeedna waxaan ku soo noqday Addis Ababa oo aan xilligaas uu ku beegnaa xilligii shirkii AU intii aan joogay dalka Ingiriiska waxaan la kulmay xubnaha baarlamaanka ee labada aqalba ee saaxiibada Somaliland waxaan kala kulmay xubno gaargaara oo labada aqal ka kooban waxaan la kulmay saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda waxaan la kulmay aqoonyahan Soomaaliyeed oo fara badan Somaliland oo fara badan jaaliyadda waxaan la kulmay saxaafadda qaybta telefishinka qaybta raadiyoga labadaba waan la kulmay joornaaladana iyo lafteeda waan la kulmay inta aan joogay dalka Ingiriiska magaalada London dadkaan la kulmay oo dhan waxaan uga sheekeynayay oo uga warramay xaaladda waddanka dhinac walbaba dhinaca maxaa yiraahdaa dhaqaalaha bulshada siyaasadda deganaanshaha dhinacyadaas oo dhan wixii aynu ku guuleysanay wixii ay mataqaanaa carqaladayna hor yaala dawladda cusub waxyaabaha u mudan iyo inkaasi ay mataqaanaa isha ay ku hayso si wanaagsan baa loo soo dhaweeyay runtii maxaa yiraahdaa warbixintaas aadna waa la inoogu taageeray waxaana runtii ii soo baxday Somaliland maxaa yiraahdaa qadiyadeeda iyo dadkeena himiladooda iyo taariikhdooda inay yihiin wax imanka meel maray oo dadku ay ka wada dheregsan yihiin intii aan joogay iyada laftigeeda dalka Itoobiya oo ku beegnaa sidii markii hore baan sheegay xilligii shirkii AU-da waxaan la kulmay safiirro fara badan kuwa Afrikaana iyo kuwa Ajnabiga iyo kuwa Yurubiyaanaba waxaan la kulmay wasiirro fara badanna waan la kulmay waan chance baan u helay qaran ballan toos samaysanay iyo qalab munaasabada sugnimiba iyaga laftigooda waxaan uga warramay qadiyadda Somaliland khaasatan qadiyadda ictiraafka iyo geedi socodka aynu ugu jiray dimuqraadiyadda xaaladda imka waddanka ka taagan qaarkood iyo laftii waxaan uga warramay xaaladda abaaraha hadda inagu soo foole iyo lafteeda sidii mataqaanaa bal loo tixgelin lahaa inooga caawin lahaa madaxdaan la kulmay oo dhan runtii iyaga laftigooda waxaa mar kale iga soo baxday yacniga heerka mataqaanaa ay Somaliland ay ka taagan tahay iyo wanaagga laynagu yaqaano waxaa ii soo baxday runtii in Somaliland iyo Soomaaliya imkaan la isku khaldin inay kala yihiin laba waddan midba wax ku suntan yahay inagu waxaan ku suntannahay nabad baynu ku suntannahay dimuqraadiyadaynu ku suntannahay waxaa aad iyo aad runtii sumcaddeena kor u qaaday doorashadii aynu galay sanadkiina soo dhaafay dabayaaqadiisii oo meel walbaba ka dhacdo tusaale u noqotay maxaa yiraahdaa caalamka oo dhan khaasatan Afrika u noqotay sidii wanaagsaneed ay noogu dhacday runtii horta wax iska leh ammaanteeda ilaahay barto mahaddeeda iska leh laakiin ammaanteeda wax iska leh dadka shacabka Somaliland oo dhan waxaan waliba si gaar ah u xusayaa runtii mucaaradka iyo muxaafidkaba sidii wanaagsaneed ay ka yeeleen doorashadaas dadku runtii way u dhigan nugul yihiin qadiyadeena way u soo jeedaan oo taas kama daahsana way ka wada warhayaan sharciyada aynu leenahay taariikhdeena in waddanaynu ahaan jiray dee gaar ah inaynan ahayn gobol ka go'aya waddan inaynu ahayn waddan kale ku darsado dabeedna isku darsigeena dhibaato kala kulmay dabeedna si ay wada dadkeenu ay go'aansadeen inay dib ula noqdaan mataqaanaa xorriyadoodii waxaan uga warranay kaalinta haddaynu kaga jirro deganaanshaha iyo xasiloonida iyo ammaanka gobolka aynu kaga jirro iyo intaynu ku soo biirin karaba iyo sida mataqaanaa ictiraafka Somaliland uu faa'iido ugu leeyahay ما هي Somaliland oo kaliya laakiin gobolka oo dhan ay Soomaaliya ay ku jirto
iyo Afrikaba dadkaas runtii dad waxay niyad wanaag baan runtii aan kala kulanay waxa nooga soo baxay laftigeeda in loo baahan yahay inaynu codkeena kor u sii qaadno waxa wax badan waliba aan ka hadlay xagga mataqaanaa warbaahinta inaynu codkeena gaarsiino caalamka xagga communication inaynu xoojino caalamkeenu gaarsiino maxaa yiraahdaa codkeena wali waxayna very important ah halkan runtii aan iyana baaq uga dareeyo xagga qurba jooga in loo baahan yahay qof kasta oo Somaliland meel kasta uu joogo inuu isagu isu dhago inuu yahay safiir Somaliland oo mataqaanaa halka isagu ka hawlgalo sidii mataqaanaa uu dadka ugu sheegi lahaa qadiyadeena ugana dhaadhicin lahaa taageerina mataqaanaa ugu heli lahaa marka runtii safarkaas waxaan oran karaa safar buu ahaa aad iyo aad u wanaagsan buu ahaa runtii dhiiri badan soo gali inay dhiiri galiya aniga had iyo jeer madankan Somaliland joogna waxa la yiraahdaa 26 sanadood baynu ictiraaf doonay waxa meynaan helin arinku runtii saama had iyo jeer waxaan badinayno hoos u dhignay inaku maxaan yiraahdaa maqaamkeena laakiin arinku runtii saama ictiraafku wax lagu helayaa wax weey waa geedi socod jaran la koreeyaa jaranjaradii wax badan baynu ka soo gudubnay intii yareed bay markay noo hadheen kulay saanim ku arka geediga intii yareed bay noo hadheen marka had iyo jeer yeena arkin intay noo hadhee intaynu soo goynay laftigeeda aynu maxay yiraahdaa aynu eegno inaku yeenan hoos u dhigin maxaan yiraahdaa ictiraafkeena iyo halkeenu ka taaganahay caalamka ayaan runtii aan doonay inaan ku xoojiyo waxa loo baahan yahay dabcan siyaasadeena si aynu ugu guuleysano siyaasadeena dibadda waxay ku xiran tahay marba si aynu ugu guuleysano siyaasadeena gudaheeda laftigeeda marka waxayna aad iyo aad muhiim ah inaynu dhowro midnimadeena wadajirkeena nabadeena aad iyo aad bay mataqaanaa muhiim uga tahay sidii aynu ugu guuleysan lahayn qadiyadaynu leenahay ee caama ee guud ee aynu ka mid noqono bahda caalamka intaas aan ku soo gabagabeynaya su'aaluna weydiin furan yihiin aad bay mahadsantihiin assalaamu calaykum